السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي وآد باد سلامنتين دمانتين ميل كست aad joogtaanba fiidiyogan waan ugu talagalay ummadda Soomaaliyeed dadkeenu inay ka faa'iideystaan macluumaadka ma garanaysaa ay ku saabsan caafimaadka iyo cudurrada inta badan dadkeena ku dhaca waliba noocaanka iyo sida loola waxa loo yaqaan treatmentka ama magaranaysa loo cilaajo ama cilaajka af Carabiga la isku daaweeyo dhirta iyo cuntada iyo waxaan rabaa inaan waliba aan uga sii gudbo maanta daawooyinkan layna siiyo ee ay dadku qaataan daawooyinka dadku qaataan ee lagu ordayo ee la leeyahay dawo hebel iyo dawo hebel inay dawadu waxaad ogsoonataan inay intay wax ku yeelayso ayaa ka badan intay wax ku tarayso waxa fiican horta carabtu waxay tiraahdaa maahmaha baa jirta tiraahdaa wadaawiha billati hiya daa'u wadaawiha billati hiya daa'u macnaha waxa weeye waxaad ku daweysaa oo dawo uga dhigtaa wixii cudurka u ahaa waxaad oranaysaa sidee bay u dhici kartaa qofka in cudurkii ku dhacay lagu daweeyo cudurka laftiisa okay for example hadda talaalka oo kale haddaynu ka soo qaadno waa cudurka viruska sameeya مثلا sameeya ma garanaysaa furuqa oo kale ama chicken pox ka waxa uu yaqaanaan dadkan afkiisa ku hadla ama judariga inagu judariga waxaan naqaanaa furuqa ayaa wuxuu si kala baxaa inagu waxaan naqaanaa furuq iyo furuq dhoon iyaguna magacyo kale si kala baxaano inagu halkaynu kaynu nahno habla baaska oo kale iyagu waxay yiraahdaan judari way yiraahdaan ama chicken pox laakiin marka qofka laga talaalayo qofku isagoo waxba qabin marka la yiraahdo ilmaha yar waxa laga talaalaya furuqa ama judariga ama chicken pox ka laga talaalaya talaalkan aad maqashaan waa maxay talaalkan waa cudurka laftiisii oo meeyda cudurka naftiisii oo meeyda ayaa la nidaam garaya la system garaya nidaam muayyan laga dhigaa xaalad muayyan isagoo ah ayaa jirka lagu mudaa ama meeyda ahaado ama qubkiisa ahaado ama isagoo macnaha ahaan inactive ahaado lagu mudaa jirku marka wuxuu sameeyaa waxyaabaha loo yaqaano antibody-ga ama difaaca jirka ama waxa faaraga loo yaqaan manaacada ayuu sameeyaa marka uu ku dhaco isagii oo caadi ah markuu ku dhaco jirkii uu aqoonsanayaa difaac wax hore u soo maray weeye uu difaacaya marka manaacad buu yeelanayaa ama antibody buu yeelanayaa ama difaac jirka buu yeelanayaa okay marka waxay noqonaysaa macnaha waxa weeye waa halka ay ka timi marka inagu keenna markaynu ka hadalno tan anigu aan ka hadlo ee magaranaysa isku daweynta dhirta ah waxa weeye cudur kasta oo bani aadamka ku dhaca sabab waxa uu ah cunto markaan ku leeyahay marka taysan ku daweynayna macnaha waxaan rabnaa inaanu ku daweyno wax kasta cudur kasta inaanu cunto ku daweyno for example يعني waxyaabo badan iyo buxuus badan iyo qoraal badan oo aan ka akhrinay ama ka akhriyay oo aan ka soo darsay oo aan ka soo arkay cudurkan dadku la wareeray ee loo yaqaan kansarka ilaahay sharkiisa naga fogeeyay naga iyo ummadda Nabi Maxamed ba waxa uu aaba ah oo lagu daweyn karaa oo natiijo fiican oo yani aanay dadka inta badan aanay doonayn inay ka hadlaan inuu keeni karo in laga gooyo wax allaale wixii ahaa cuntooyinka aan ahayn naturalka macnaha waxaan ka wadaa naturalka aan ahayn qofka hadii la siiyo wax dhulka ka soo baxa kaliya oo aan laga ilaaliyo animal protein ama wixii xayawaan ah wax kasta nooc kasta ahaado xayawaankaasi ama ahaado magaranaysa caano ama wixii la darsa waxyaabaha caanaha ka soo baxa wax kasta oo magaranaysa ku shaqale xoolaha hilib ha ahaado caanaha ha ahaado subag ha ahaado wax allaale wixii ku lug leh xoolo dii laga jaro oo laga daayo oo wax allaale wixii sanaaci ah ee dad gacanta lagu sameeyay macnaha
ka soo baxay warshad laga ilaaliyo oo biyaha iyo ma garanaysaa la siiyo cunnada ka soo baxdo dhulka galleyda haruurka arabikida bariiska diilay kuuri baradhada muuska iyo wax allaale wixii fruit ah ee natural ah ee waliba organic ah waxa dalkeena ka baxo kale macnaha aan lagu darin asmidadan iyo waxa hubaal ah oo la soo hubiyay buxuus badan oo aan ka akhriyay oo qaar Japan qaar China qaar Mareykan qaar aan laakiin aan la doonaynin in la sii fidiyo ay dadku ay in aqoonta ay kororsadaan aan la doonaynin natiijo fiican bay ka keenaan marka la sii raacdayona waxaad ogaan kartaa inuu control ku samaynayo at least inta 3 bilood ee ugu horeeya inuu joojiyo fidista cudurka okay aan ka gudubno ka waxaan si fiican hadda rabaa inaan uga hadalno arrintii hadda ka hor xalqadii hore aynu ka hadalay ee ahayd waxa loo yaqaano gastriga iyo dawooyinka loo isticmaalo gastriga dawo badan baan arkay oo ka dacwoonaya gastriga caloosha horta 90% cudurrada jirka waxay ka yimaadaan caloosha hoyga cudurku waa caloosha waxba yaan la idin sheegin wax kale hoyga cudurku waa caloosha hadda waxay qoran dhaqaatiirtu haddii aad vitamin C cuntid ama aad carrot cuntid ama aad dabacsi cuntid indhaha ama caynkana haddii aad sidaan soo timaha caynkana haddii aad magaranaysaa saasa yani wax walba laakiin waxa hubaal ah haddii ay cuntadaadu saxan tahay waxa ka horeeya in calooshaadu saxan tahay calooshaadu haddaan caafimaad qabin cuntada ka faa'iidemaysid waxa caafimaadka caloosha lagu garanayaa oo kamida dheefshiidkii aynu hadda ka hor ka hadalay dheefshiidka hadii la dilo maxaa soo harayba dheefshiidka cuntadii waad cunaysaa hadda dheefshiidka ka dishid oo aad tagment iyo zantac iyo iyo lozic iyo dawooyinkan ma garanaysaa dhanaan jebinta loo yaqaan iyo laabdilaaca haddaad cuntid cuntadii kama faa'iideysid cuntadii sidii ay aad u cuntay ayay 70% dabada u aadaysaa ma garatay waxa kale oo ka daranba inay cudurrada badan ee ku dhaca gastonka ay ka yimaadaan waxaan loo yaqaano dhanaan jebinta iyo laabdilaaca waxa keenaaba dhanaanka badan ee caloosha ee dheefshiidka oo bata ma aha dadku qalad bay dhaqaatiirta 90% qalad bay ka fahansan yihiin in ay dawar dhanaan jebin qofka u qoraan laabdilaaca waayo laabdilaaca waxa weeye dhanaankii caloosha ama dheefshiidkii caloosha ku jiray dhanaankii ayaa soo noqday oo caloosha ka soo noqday oo hunguriga halka dhuunta ah ku soo noqday laabdilaaca kaasa sameeya sababtu ku yimaadana maaha dhanaanka batay waa dhanaanka oo yaraada haddii aad dawada dhanaanka yaraysa aad sii cuntid haddana waa sii yaraanaya waxaad noqonaysaa chronic mar walba dawadaasi waa inaad cuntaa marka waxaad dilaysaa mar walba waxaad dilaysaa dheefshiidkii caloosha cuntadaadii baa xumaanaysa gaalstonka ku dhacaya xamiitada dhagax ka gelaya cuntadaadii baa si kale noqonaysa ironkiiba ka baaba'aya iyo xadiidkii birta jirka ayaa yaraanaysa calciumka ka yaraanaya haddii uu birtu yaraato low pressure baa ku dhacaya qofka inta badan haddaad isku aragtaan waxyaabaha ku tilmaamaya calooshaadu inaanay bed qabin waxa weeye qofka inay birta ironka ama xadiidka waxa loo yaqaan dhiigga inuu hoos u dhaco sidee baad ku garataa inuu hoos u dhacayo calaamadaha ku tilmaamaya maanta haddii maanta madaxa ku xanuuno waxa ku hay garan maysid madaxa ku xanuunaya headache madaxa yani waa arabtu waxay tahay sudac okay sudac baa madaxa ku xanuunaya laakiin waxa madax xanuunka sabab baa keentay waxay ku siiyeen painkiller ama kaarjibin هذا ما يدوين ده واحد يدوين كاركي ماذا حنونك بيدوين لكن ما يدوين عذركي قرن ما يصير ماذا حنونك دوّا ماذا حنونك الله عنه ماها علاج ما قررتها وشركو نوركو مسكار شرعية بس وحكا وكوصينا مجد مركا على مدى لو قرطو إنا برتو شركة حديدكو وكادعي وحكم ده كو ودنه كو قرعة لبا
qofka timaha ka daata 3 dookhad adigoo dookhad sidii markaad soconaysid sidii wax miisaan ku kaalmaya 4 kabuubyo 5 calool adayg 6 bishnuhu ku qalala 7 cidiyahaagu aad u cadaada ma garat intaas soo dhami waxay ku tilmaan calaamadaha oo dhan maaha waa calaamadaha kamida ee lagu garto qofka inuu ironkiisu loo yahay haddii aynu nahno maanta ironkiiba ama birtiiba hoos u dhacday jidhka vitamin xadiid ama iron baan cunaya yani another case weeye taasi waxa lagu cilaajo wax laga yaabo inaan ahayn inaad wax xadiid la cuntid wax laga yaabo inuu khalal ku jiro caloosha ka yimid dheefshiidkan qofku la dagaalamayo ee uu oranayo labdilaac baa yahay ee aan dawadii labdilaac cuno labdilaac wax basida lagu jabiya labdilaac hadaad maanta aad cuntid xabad rumaana hadaad cuntid ama qubkeedaba aad cuntid ama aad casiir fresh oo macnaha aan ahayn de candy aan ahayn kuwan macalabaadka amaane aad lagu tabiici aad cabtid rumaana oo ka jabaya mid khiyaarka baalka loo yaqaano ama kukumbarka hadaad cuntid waa ka jabaya caano qabow hadaad cabtid waa ka jabaya mid salad hadaad cuntid waa ka jabaya ya calooshaada hadaad socodsid waa ka jabaya يعني waxyaabo badan baa lagu dawiyay qasab maaha inaad la dagaalatid dheefjiidka hadaad la dagaalatid calooshii cudur baa ku dhacaya bakteeriyadii baa kacaysa hadii ay ku roon yahay waxa ku nooy wax loo yaqaan irtijaac qurxad ama gastriga dhuunta ku dhacaya calool adag baa ku dhacaya calool adag wuxuu keenayaa gases qoolon baa ku dhacaya qoolonku wuxuu keenayaa another case wuxuu ku dhacay gastriga qoolonka ku dhacaya calool adaygaas wuxuu keenayaa waxaan loo yaqaan bawaasiir qofku marka uu sameeyo khuruujka ama saxarada sameeyo qasab uu ducanaya bawaasiir ba ku dhacay bawaasiirtii hadii aan calool adayga aan la daweynin wax laga yaabo in operation lagu sameeyo operation kaas wax laga yaabo inuu another case uu noqdo infection kaas aakhirka intuu isu bedelo cancer waxaan naaturka loo yaqaan ma garatay okay waxaasna waxaan ka hortageynaa waxa weeye inaynu caloosha caafimaadka caloosha waa inaynu ilaalinaa caafimaadka caloosha sidee loo ilaaliyaa horta koow waa inaad aadan cunin dawooyinkan dheefshiidka jabiya waa inaad cuntaa geed waxa jira aad iyo aad qaali u ah oo caafimaadka aad iyo aad ugu ah faa'iido weyn u sameeya oo loo yaqaano banjar waa geedka suuradiisa hadalka ka aragtaan inkastoo ay dadku ay yaqaanaan shamandarku waa nooc kamida banjarka geedka loo yaqaan geedka weeye af ingiriisigana waa ka halka ku yaala marka geedkaasi waa geedka laga helo ironka waa geedka caloosha dawada u ah gastriga iyo nabarrada caloosha dawada u ah beerka dawada u ah hadii uu ku leeyahay xameetida daawada u ah iyo dhagxaanta gala dhagax kasta oo gala ama kaliyaha gala ama beerka xameetida gala waxa jira hadda dhagxaan beerka gala maaha dhagxaantu kaliya ma galaan xameetida iyo kaliyaha iyo kaaji haysta iyo ma galaan waxa jira dhagxaan beerka gala baa jira waayo waxaan loo yaqaano brolobinka ama brolobinka waxa loo yaqaano ay carabtu hada safra kaadida qofka markuu kaajo yalowga ka dhigta beerka ka timaada hadii ay xidho gaalisto bahalkan la yiraahdo bahashaas xameetidu haday xidho oo ay ku badato dhagxaantu ku badato beerku dhagxaan buu sameeyaa waxa laga yaabaa dadka xameetida laga jaro ee la yiraahdo xameetida waa operation balos xameetida ba laga saaray in dhagxaantii xameetida geli jirtay markay xameetidii laga qaado oo still ay calooshiisii aan caafimaad qabin oo aan dheefshiidkiisu saxanayn inuu ku yeesho dhagxaan beerka ayaa dhici karta way dhacdaa waa la arkay marka geedka banjarka la yiraahdo waa geed caafimaadka xubin weyn ka qaata oo fiitamiino B-ga iyo D-da iyo E-da iyo C-da
intaba aad iyo aad ugu badan tahay weliba marka laga dhigto casiirka ee lagu qaso karotka ama tufaaxa ama dabacsaha lagu qaso aad iyo aad buu u yahay faytamiin tayo leh casiirka maxaa geed tayo leh ma garanayo anigu inaynu inagu beerano waddanka Soomaaliya inaynu beerano ama Soomaaliduba inay beerato anigu yani kuma xasuusto wax la oran jiray laakiin dhirba geedkaasi dadka waliba qurbaha jooga dad badan baa jira oo ka dacwoonaya ma garanaysaa inta badan gastric ka dacwoonaya ama dhanaan laabdilaac ka dacwoonaya ama gaasiska waxa loo yaqaan qofku uu iska dibirsan yahay waxa laga yaabaa caloosha inay caafimaadka caloosha wax kale ka siiyeen qofku marka cuntada cuno 1 hour 2 hour 3 hours maximum halkii ay cuntada ku jiri leedahay caloosha waxay iska jiraysaa 5 hours 4 5 hours 6 hours bas iska jiraysaa haday doonto cuntada way khamiiraysaa xilligii loogu talagalay dheefshiidku inuu burburiyo way dhaafaysaa gaas bay sameynaysaa waa dibiraysaa adigoo duurkii qadiyay baad arkaysaa 5 galabnimo ama 6 galabnimo maqribnimo adigoo iska dibirsan aad moodid inaad bardhood cuntay waa inaad ogaataa marka qasab waa in caloosha socodsiin haddaad caloosha socodsiin dhirta caloosha lagu socodsiyo hadda ka hor xalqad horaan ku soo qabanay waa inaad iska yaraysaa waxa animalka dhirta cunta caloosha way soconaysaa marka waxaan doonayaa inaan dadka u sheego geedkaas hal la ogaado waa 3 jeer fiidiyogeena waxaan doonayaa inaad si share garaysaan oo dadka wixii munaafacaada ma garanaysaa faa'iido u ah أجر باكوشرة الفاعل الخير دال على الخير كفاعل بالنبي عليه الصلاة والسلام نبي نصبنا ويلي الدال على الخير كفاعله قف كخير كتصادق كأوتل ماما وكدقية قف خير كسمية كي سمية وكدقية ولا دقما ولا أجر يعني مركا أجر كاورا ليال أينو وذاقنو dadka caafimaadkooda iyo nasiixadooda iyo wixii maslaxadooda ku jirto aynu gaarsiino aad iyo aad baad u salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh